waad mahadsan tahay inkastoo howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socdeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan hiiraan ayaa xalay saqdii dhexe waxaa ciidamada xoogga dalka waxaa howlgal oo maleeshiyada al-shabaab markaasi aysan filaynin ku galeen deegaanka moqokuri oo u dhow degmada maxaasi gobolka hiiraan ciidamadu markay tageen deegaanka moqokuri waxay isweer ka qabteen deegaankaasi oo maleeshiyadu ay markaasi saldhigyo waaweyn ku lahaayeen oo halkaas ayaa mar qura ka dhacday risaas xoog leh oo dhex martay ciidamada dowladda iyo weliba maleeshiyada al-shabaab ee deegaankaasi ku sugnaa waxaana halkaasi ku gubtay saldhigga booliska raashiin markaasi iyo shidaal oo maleeshiyadu ay ka qaateen dadka deegaanka oo ay ugu talagaleen iyagu markaasi ismacaalaan ay ku gubtay madaafiicdii iyo weliba risaastii markaasi labada dhinac iswadaarsanayeen waxaana xalay qalqal weyn ku abuurtay dadka deegaanka moqori oo mar qura xalay 8 saqdii dhexe maqlay jugta ee ka dhacaysa deegaanka waxaana halkaasi ku dhintay dhammaan maleeshiyada al-shabaab halkaasi ku sugnaa maadaama aysan filaynin in howlgalkani oo markaasi lasoo qaadayo in kale laakiin aanan ka war helin in howlgal markaasi kusoo wajahan yahay mar qura ay ka war helay iyagoo markaasi loola joogo deegaanka moqori oo ciidamada xoogga dalku ay la joogaan taliyaha cusub ee guudka shanaad tani markii xilka uu la wareegay dhowaan waxa uu bilaabay in howlgallo markaasi kala duwan oo ka sameynayo gobolka waxaana taliyuhu uu sheegayba si qaas u sheegay in maleeshiyadu maadaama iyagu ay wadooyinka ay u galaan dadka rayidka ah iyo weliba ciidamada dowladda iyo kuwa amiso markay safrayaan isaguna uu bilaabi doono howlgallo oo sida al-shabaab oo kale dadka ay ku sameeyaan oo kale oo muxuu ahay ay wadooyinka u galaan in shabaab wadooyinka loo galo deegaano ay sinfinayn si lama filaana lagu tago maadaama howlgalladu inta badan ee al-shabaab xillida dhacayaan qaarkood ay ka warhelaan oo markaasi ay ka sabaaraan degaan ama deegaanka ay ka baxaan laakiin taliyuhu waxa uu sheegay in si dhuumaaleysi oo deegaan kasta uu ku tegi doono howlgalna uu ku fuli doono deegaankan waa deegaankii ugu horreeyay si dhuumaaleysi ah howlgal loogu sameeyo xalay ciidamada ku guulaystay dadka deegaanka waxay sheegeen in deegaankaasi yeelaan saaka meydka maleeshiyada al-shabaab oo xalay markaasi deegaankaasi lagu leeyay